sida malabka ayay u macaan tahay. As a beautiful waxay u qurux badan tahay. As a peacock sida daauska. As a cold waxay u qabowdahay. As an ice sida barafka ayay u qabowdahay. And as a sparkles waxayna u kaahdaa ama ay u dhalaashaa. As a gold sida dahabka ayay haddaad nagu cusub tahay soo dhawow naguna caawi subscribe casharkana sii share garee. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada iyo kusoo biiridaada Kaaba Technology and Language. waanu kaaga mahadcelinaynaa. mahadsanid. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا دمانتين أصحابتا كوحدان كابا Technology and Language. waxaan qaadanaynaa casharadeenii mid ka mid ah casharo horaan soo qaadanay oo kanaalka ku jira. kanina kuwii uun ayuu ka mid yahay. cotaan waxaynu soo gelinaa si isbuuclaha casharo aad u xiiso badan. haddaad doonayso inaad luqada Englishka aad barato nagu soo biir Kaaba Technology and Language. waxaad ka helaysaa casharo ku anfici doona waxyaabo fara badan oo ku saabsan nolosha. caawana waxaan qaadanaynaa 2 cashar oo casharadii hore daba socda. la socod wanaagsan. competition about peace. عرس كسابسن نبضة. competition about peace. عرس كسابسن نبضة. okay. وبلابنا لسعود ونكسن. today maanta I am very eager هذا يعني كله لهاي to talk إن كهالله topic موضوع about كسابسن peace نبضة كسابسن إن الموضوع كسابسن نبضة عن كهالله هذا يعني كله لهاي. if هدي يعني get down and so that they go to the guest نحركه of my topic موضوع عيقة Fasti ugu horeyn what is the peace maxay tahay nabadu. peace waa nabada weeye. gist waa nuxurka. eager ku kululaan ama waxaad uu aad qofku ugu diiran yahay inuu markaa maxay tahay sameeyo. markaa fasti ugu horeynba what is the peace maxay tahay nabadu. peace nabadu is the key waa furaha of relaxation ee raaxada. peace nabadu is the key waa furaha of the relaxation ee raaxada. daadkaasoo Allah ilaahay endow uu ugu deeqo ama uu u hibeeyo settle nation qaran degan ama ummad degan uu ilaahay u hibeeyo. peace nabadu is also sidoo kale defined waxaa lagu qayaxaa marka la qayaxayo the absence maqnaanshaha of the war ee dagaalka. or ama waa weyn marka the nation qaran of the world dunida kamida laaf uu jeclaado one another mid kale ay isjeclaadaan. ayaa maxay tahay nabada lagu qayaxaya. waxaynu nini nabadu is the key waa furaha of a relaxation ee raaxada. daadkaasoo Allah ilaahay endow ugu deeqo ama uu u hibeeyo settle nation qaran degan. peace nabada is also sidoo kale defined waxaa lagu qayaxaa the absence maqnaanshaha of the war ee dagaalka. or ama waa weyn marka the nation is qaramada kamida of the world oo dunida ahi laaf uu jeclaado one another mid kale uu jeclaado. however si kastaba ha noqotee peace nabadu is one waa mid kamida of the most important thing ashyaada aadka u muhiimka mid kamida weeye. that lies taasoo dhacda every person qof kasta in a heart wadnihiisa dhacda. there is waxa jirta a proverb mahmah which taasoo says iyadu dhahaysa ama dhahda peace nabadu is waa shelter of the human waa hoyga maxay tahay bini aadanka weeye. the advantages faa'iidooyinka of the peace ee nabada inagu waynu karnaa feel inaynu dareeno now hadda inaynu dareeno waynu karnaa. okay. adiga ku soo celishanaya mar haddaan ku soo celiyo aan mar wada akhriyo waan leeyahay waxa weeyaan
adiga unba videoga markaa ku celashanaya waan sii soconaynaa waxaynu nini the advantages faa'iidooyinka of the peace ee nabadda we can feel waynu dareemi karnaa now hadda waan dareemi karnaa because maxaa yeelay we inagu sleep waynu seexanaa and awake waynuna soo kacnaa with a peacefully si nabad buuxda ayaynu u seexanaa oo aynu u soo kacnaa but laakiinse the people dadka in ku jira iyagu war dagaalka today maanta ayaa understood waxay fahansan yihiin ama ay garanayaan the cost qiimaha of the peace ee nabadda qiimaha ay nabaddu leedahay qofka dagaalka iyo dhibka markaa ku dhex jira ayaa fahmi kara qiimaha ay markaa joogto nabaddu ay joogto okay turitaan wuxuu noqday our country wadankeenu peace mid nabad ah ayuu noqday praise to be Allah ilaahay ayaa mahadda iskale praise to be Allah ilaahay baa mahadda iskale all in all gebi ahaanba peace nabaddu leaders waxay ku hogaamisaa the country wadanka waxay hogaamisaa prosperity barwaaqay ku hogaamisaa abundance nimcay ku hogaamisaa development horumar ayay ku hogaamisaa and interactions iyo waliba maxay tahay isdhexgal confidentiality isku kalsoonaansho stability iyo waliba xasilooni ayay wadanka ku hogaamisaa nabaddu last but not least gunti iyo gabagabadii I would recommend waxaan kula talinayaa dadka Soomaalida ah to maintain inay joogteeyaan their peace nabadooda inay joogteeyaan ama ay markaa maxay tahay ilaashadaan ayaan maxay tahay kula talinayaa dadka maxay tahay Soomaaliska waxaanu nini because maxaa yeelay we inagu sleep waynu seexanaa and awake waynu soo kacnaa with a peacefully si nabad buuxda but laakiinse the people dadka in a war ku jira dagaalka today maanta ayaa understood waxay fahansan yihiin the cost qiimaha of the peace ee nabadda turitaan wuxuu noqday our country wadankeenu peace mid nabada ayuu noqday praise to be Allah ilaahay baa mahadda iskale all in all gebi ahaanba peace nabaddu leaders waxay ku hogaamisaa the country wadanka prosperity barwaaqo ayay hogaamisaa abundance nimc ay ku hogaamisaa development horumar ayay ku hogaamisaa interactions isdhexgal ayay ku hogaamisaa in la isdhexgalo oo ay dadku isdhexgalaan confidentiality in la isku kalsoonaado la kala shakiyeen ayay ku hogaamisaa stability xasilooni ayay ku hogaamisaa but not least but not least guntii iyo gabagabadii I would recommend waxaan kula talinayaa dadka Soomaalida to maintain their peace inay joogteeyaan ama ay ilaashadaan maxay tahay nabadooda halkaas deerta halka ereyga waxba ka yar maqan halkaas ay ku jirtaa their peace nabadooda iyadaasna meesha kuma jirto halkaana ay baa ka yar maqan error weeye ka raali ahaada ashka hadan mar dib ugu soo celiyo waxaanu nini competition and about peace mawduuc ku saabsan maxay tahay nabadda ku saabsan today maanta I am very eager ayaan ugu kululahay talk inaan ka hadlo topic mawduuc about ku saabsan peace nabadda ku saabsan mawduucaas inaan ka hadlo maanta ayaan ugu if haddii ay anigu get down aan u soo daadego to the gist nuxurka ereyga gist waa nuxurka get down aan u soo daadego to the gist nuxurka of my topic ee mawduucayga fasti ugu horeyn ama marka koowaadba what is the peace maxay tahay nabaddu peace nabaddu is waa the key waa furaha of a relaxation ee raaxada ereyga relaxation waa raaxada weeye daadkaasoo Allah ilaahay endow uu siiyo ama ugu deeqo settle nation qaran degan ereyga settle deganaan endow u hibeeyo settle nation qaran degan because peace nabaddu waan leenahay is waa also sidoo kale defined waxa lagu qayaxaa the absence maqnaanshaha of the war ee dagaalka or ama waa ween marka the nations of the world qaran ka mid ah qaramada adduunku laaf u jeclaado wananada laba qaran waa markay isjeclaadaan oo maxay tahay dhexdooda ay nabad taalo ayaa nabadda lagu maxay tahay lagu qayaxaa okay however si kastaba ha noqotee the peace nabaddu is one waa mid ka mid ah of the most important thing ashyaada ugu muhiimsan ayay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan important muhiima most ugu badan most important thing waa shayada ugu muhiimsan taada leesta soo dhacda every person qof kasta in heart wadnaha there is waxa jirta a proverb which taasoo says dhahaysa iyadu peace nabaddu is a shelter of the human waxa weeyaan waa hoyga maxay tahay bini aadanka the advantages faa'iidooyinka of the peace ee nabadda we inagu can feel when dareemi karnaa now haddaynu dareemi karnaa because maxaa yeelay we inagu sleep waynu seexanaa and awake waynu soo kacnaa with a peacefully si nabad buuxda bad laakiinse the people dadka in ku jira weer dagaalka
today maanta ayaa understood waxay fahansan yihiin the cost qiimaha of the maxay tahay peace ee nabadda qiimaha nabadda joogto cidda dagaalka ku dhex jirta ayuunbaa fahansan markaa ee qof markaa nabadda iskaga dhex jiraa muusan fahansanaa turitaan wuxuu noqday our country waddankeenu peace nabad ayuu noqday praise to be allah ilaahay ayaa mahadda iskale all in all gebi ahaanba peace nabaddu leaders waxay ku hogaamisaa the country waddanka prosperity barwaaqo and abundance iyo weliba nimco development horumar ayay ku hogaamisaa and instruction iyo weliba maxay tahay isdhexgal confidentiality isku kalsoonaansho stability xasilooni last but not least waxa weeyaan conclusion guntii iyo gebagabadii aniga would recommend waxaan kula talinayaa dadka Soomaalida ah to maintain their peace inay joogteeyaan oo ay ilaashadaan maxay tahay nabadooda cashkaas wuxuu ku saabsanaa maxay tahay nabadda ayuu ka hadlayaa mid kale isaguna aynu qaadanaynaa oo ka hadlaya nabadda ka hadlaya isagana la socod wanaagsan asxaabta qaaliga meel kasta joogtaan okay kana waxa weeyaan waa topic mawduuca bood ku saabsan peace nabadda ku saabsan ka nabaddu aad ay u qiimo badan tahay wax la soo koobi karo maaha casharkan iyo casharo kale toona ma lagaga hadli karo aad ayay uga gura fog tahay ama uga ballaaran tahay sida aynu moodeyno marka laakiinse wixii karaanka waxa weeyaan in badan waan ka soo hadli doonaa maxay tahay nabaddu iyo waxa ay tahay okay kana aan akhrino marka casharadan waxaad ka fahmaysaa nabaddu qiimaha ay leedahay iyo halkay ka joogto maxay tahay dadka Soomaalida ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nabadina siiyo the peace nabaddu is an important waxay muhiim u tahay life nolosha for the society ee bulshada nabad in la helo waxay muhiim u tahay maxay tahay nolosha bini'aadanka ama nolosha bulshada ay muhiim u tahay bulsho aan nabad haysan waxba ma haysato marka the peace nabaddu is an important waxay muhiim u tahay life nolosha for the society ee bulshada to develop say ugu horumariyaan their tasks hawlahooda ay ugu horumariyaan hawlo badan bay bulshadu leeyihiin siyaabo kala duwan ayay ugu horumarinayaan hawlahooda their tasks hawlahooda ay ugu horumariyaan where meesha there is not peace aanay nabadi ka jirin there is not life nololina kama jirto oo waqtiin meel dagaal ka dhacayo waxaweyaan baraka iyo wixii la mid ah ayaa ka jira iyo masiibo iyo burbur iyo baaba ka jira marka meel aan nabadi ka jirin waxaweyaan nololina ma ka jirto okay and the people dadkuna live waxay ku nool yihiin dadka marka meeshaas degan in a fear cabsi ay ku nool yihiin aan worry iyo waliba welwel kormaa maxay tahay uu soo dhici doonaa marficiiba bay ku warwarayaan oo ay maartay ka cabsanayaan and also sidoo kale the animals xayawaanku migrate way ka haajiraan ama way isaga tagaan oo way ka cararaan meesha haddii aanaysan nabadi ka jirin way ka cararaan oo way isaga tagaan xayawaanka laftarkoodu sanqadha iyo waxa uma adkaysan karaan iyaguna way isaga cararaan okay the peace nabaddu is sweet waxay u macaan tahay as a honey sida malabka ayay u macaan tahay as a beautiful waxay u qurux badan tahay as a peacock sida daauska as a cold waxay u qabowdahay as an ice sida barafka ayay u qabowdahay and as a sparkles waxayna u kaahdaa ama ay u dhalaashaa as a gold sida dahabka ayay u dhalaashaa oo ay u kaahdaa lack of peace meel aan nabadi ka jirin force waxay ku khasabtaa the people dadka to run away inay isaga cararaan oo ay ka cararaan from their properties hantidooda marka iyo waxay haystaanba inay ka cararaan oo naftooda ay la baxsadaan ayay ku qasabtaa ka bacdi markay cararaan oo ay hantidooda ay khasab noqoto inay ka tagaan iyagu become waxay noqdaan refugees dad qaxooti ah ayay ka noqdaan inay foreign countries wadamada ajnabiga ayay ka noqdaan qaxooti ka noqdaan macnaha qof dul saaran dadka ay ka noqdaan refugees waa qaxooti macnaha meesha aan lahayn ayay noqdaan das hadaba the peace nabaddu is an essential thing waa shay daruuri weeye essential thing waa shay daruuri weeye aan kana ku celino the peace nabaddu is an important waxay muhiim u tahay life nolosha for the society ee bulshada to develop say ugu horumariyaan their tasks hawlahooda ugu horumariyaan where meesha there is not peace aanay nabadi ka jirin there is not life nololina kama jirto and the people dadkuna live waxay ku nool yihiin in a fear cabsi ayay ku nool yihiin aan worry iyo waliba welwel and also sidoo kale the animals xayawaanku migrate way ka haajiraan ama way ka cararaan meeshaas aan nabadu aanaysan ka jirin the peace nabadu is
sweet waxay u macaan tahay as honey sida malabkay u macaan tahay as beautiful waxay u qurux badan tahay as peacock sida daauska as cold waxay u qabowdahay as an ice sida barafka ayay u qabowdahay as an as sparkles waxayna u dhaalaashaa ama u kaahdaa as gold sida dahabka lack of peace meelaana nabadi ka jirin forces waxay ku khasabtaa the people dadku to run away inay isaga cararaan from their properties hantidooda they iyagu become waxay noqdaan refugees qaxooti ayay ka noqdaan inay foreign countries wadamada ajnabiga tas hadaba the peace nabadu is waa an essential thing waa shay daruuri weeye oo markaa maxay aan laga maarmi karin oo cid walbaaba ay u baahan tahay waalidku ay u baahan yihiin dhalinyarta iyo maartay dadka soo korayaana ay markaa u baahan yihiin cashkeena caawa labada cashar ayaan ku soo gabagabeynayaa inta ugu badan casharadan idin soo gelin doona waxay noqon doonaan kuwa ku anfici doona oo aad iyo aad nolosha siyaabo kala duwan marka loo eegayo luqadahan ayaad ku baranay aqoon ahaanna waad u qaadan doontaa haddaad nagu cusub tahay fadlan waxa weeyaan subscribe channelka intaasaan kaaga fadhina waanu kaa codsanaynaa siina share garee lana sii wadaag walaalahaaga kale wixii su'aale aad qabto ama wixii tala ah aad hayso aad noo soo jeedinayso commentiga ayaad nagu la wadaagi doontaa intaynu casharkan casharka xiga aynu ku kulmi doono dhammaan asxaabta saaxiibayaal waxaan idinkaga tegaynaa sida isugu dhantihiin anagoo aan mid idiin soo gaarsiin karayna laakiin guud ahaan idiin soo gaarsiinayna waxaanu idinkaga tegaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu